السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada cashirkeeni shanaad oo aynu kaga hadli doono qaybo kale oo muhiim u ah barashada astaamaha jidadka. Calaamadani waxay muujinaysaa inaad soo gashay magaalo, waxaana midabkeegu waa huruud ama yellow ay ku dhex qoran tahay magaca magaalada ku qoran waa Cologne. taa macnaheedu waxa weeye inaad magaaladii Cologne qayb ka mid ah soo gashay. fartaas magaca Cologne ku qoran tahay waxay ku xidhan tahay kolba magaalada aad gelayso. Berlin, Hamburg, München miday doonta ay noqon kartaa. magaalada aad gelayso magaceega ayaa ku qoran. xawaaraha loogu talagalay inaad ku dhex socoto magaalada dhexdeeduna waa 50 km/h. 50 km kama badsan kartid sababtoo ah waa magaalo, inaad aayar u socoto ayaa laga rabaa. calaamadana waxay muujinaysaa inaad magaaladii ka baxday, waxaana ku garan kartaa halkii Cologne ay ka ahayd midabka huruudda kaliya ayaa la dhex mariyay xariijin cas. taa macnaheedu waxa weeye waad ka baxday Cologne. xawaaraha aad ku socon kartaana wuxuu noqonayaa ka badan 50 km/h iyo kolba wixii meesha kuugu qoran ee aad ka aragto dariiqa. calaamada noocan ahi waxay muujinaysaa inaad geli rabto amaba aad ku jirto xaafado ama meel aad ku arki karto dad iyo caruur lugeynaya ama caruur dariiqa ku ciyaaraya. sidaas darteed waxaa laga rabaa inaad ku socoto Schrittgeschwindigkeit ama xawaare aad u hooseeya. dariiqa noocanihi maaha mid u kala xadaysan dadka iyo baabuurta. waa dariiq ay dadku bartankiisa mari karaan oo aan sida caadiga ah gaar laga socon karin ama dhinac ama cirif. waa dariiq dadka iyo ciyaalka xaafadda degan aad ku arki karto dariiqa wadada dhexdeeda iyagoo taagan ama wadada dhexdooda iyagoo socda. sidaas darteed ayaa loogu talagalay ama ay waajib tahay inaad ku socoto ilaa 10 km/h oo ay socodka dadka iyo gaarigu isku mid noqdaan. calaamadani waxay muujinaysaa in aad ka baxday meeshii aynu hadda soo sheeganay ee loogu talagalay dadka iyo gaarigu inay isku socod noqdaan. intaa wixii ka dambeeya waxaad ku socon kartaa xawaare ka badan intii hore. dariiqani waa dariiq one way ah ama one direction. waxay noqonaysaa waa dariiq hal meel oo loo socdo leh oo aanu ka hor imanayn gaari kula mid ah, marka laga reebo baaskiilka oo loogu talagalay inuu labada dhinacba iskaga gudbo. waxa kaliya ee aad la kulmi kartaa waxa weeye dad baaskiil ama baabuur baarkinka ku jirta ayaad kula kulmi kartaa dariiqan. calaamadan waa calaamad muujinaysa inaad ku jirto meel dad degan yahay, magaalo, tuulo ama wax la mid ah. masaafada loogu talagalay inay u dhaxayso labada gaari ee ishor socda waa 15 mitir ama 3 gaari oo isku xiga qiyaastii. calaamadan waa calaamad muujinaysa inaad ku jirto meel ka baxsan meel ay dad degan yihiin sida tuulo, magaalo ama meelo kale oo ay dadku degan yihiin. calaamadani waa calaamad muujinaysa inaad geli rabto meel dhulka hoostiisa ah ama buundo hoosteed ah ama bridge hoostii ah. waxaana laga rabaa inaad shidato leyrka gaariga. inkastoo ay badankoodu nal leeyihiin ama iftiin leeyihiin, haddana waxaa waajib ah ama xeer ah inaad shidato. maalinta imtixaanka haddii aad meel noocan oo kale ah soo marto oo aad leyrka shidan weydo, waxaa laga yaabaa inay dhibaato kaaga timaado macalinka kaa qaaday imtixaanka.
Calaamadan waa calaamad muujinaysa in lagaa leeyahay wadada. Markasta waxay ka soo horeysaa ama ay ka muuqataa marka aad wada kale geli rabto ama aad u gudbi rabto, iyo meelo kale oo badan oo ay kaaga digayso in wadadan aad iska hubiso.